kuna waan idin ahaantii daawadeel kuna soo dhawaada aragti wadaag oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan iyo caqabadaha markaa hortaagan dhismaha guddiga adeega garsoorka. barnaamijka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Xuseen Iid oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Diini Maxamed Diini. ku soo dhawaada markaa labadiina barnaamijka aragti wadaag soo wanaagsan mar kale ugu horeyn xildhibaane wareegtay madaxweynaha xilka qaaday waa taageertay adigu yani waxaan ku sheegtay inay sal ay leedahay sal ay ku fadhido adoo marka yani qodobada u tigsanayo qoraal aad barta Facebook aad soo dhigtay waxaad ku sheegtay ilaa iyo 3 qodob ma wali go'aanaad ku taagan tahay mise yani waxba iska ka bedelo yani waa ad leedahay waa ku fududaay madaxweynaha ama mayna ahayn yani xilligan loo baahno in yani xilka laga qaado habraaca madaxweynaha oo xilka qaaday waad ku taageertay adigu maxamed anigu taageero iyo taageero la'aantoona ma hayna aragtida aan shakhsiyan ka arko oo qaanuuniga ah oo aniga aragtidayda qaanuuniga ah ku aadan dhismaha magacaabista gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye baashi ayaan 3 qodob oo la xiriirta oo aan ku sheegay inay soo jireen tahay ayaan bartayda Facebooka ku soo qoray waana aragtidayda shakhsiga ah ee taageero la'aantoona ulama jeedo laakiin hadalkaaga maadaama sharci yani baarlamaanka ka tirsan tahay golihii sharci dejinta ah yani hadalkaaga wuxuu taageerayaa yani go'aankii madaxweynaha uu qaatay oo xilka qaaday gudoomiye Ibraahim Iidle adigu habraaca madaxweynaha uu xilka qaaday gudoomiyaha miyay saxsanayd maxayse kula tahay maxamed saxnaanta iyo khaldanaanta wax ka dhaxeeyo waxaa jira duruuf garsoorka Soomaaliya hadda ku jira garta duruuftaas waxay tahay golihii adeega garsoorka oo ah hay'adda maamusha garsoorka dalka oo aan dhismaheeduna wax cusub ma ahee ilaa 2014 iyo 5 ilaa hadda oo baarlamaanka aan habraaci lagu dhisi lahaa la keenay baa caqabado muuqda oo habraaca lagu dhisayo ku saabsan ayaa ka jiray taas waxay ahayd qodobka koowaad oo aragtidayda aan ku saleeyay qodobka labaadna waxay ahayd duruufta dalku ku jiro iyo musuqa baahsan hay'adaha garsoorka hareeyay taasoo saameyn adag ku leh nolosha shacabka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah qodobka kale oo saddexaad oo isaga laftirkiisu taxgelinta mudan waxaa jiray curfi lagu magacaabo garsoorayaasha sare gudoomiyaha maxkamadda sare kaliya maaha garsoorayaal kala jira oo darajada koowaad iyo darajada labaad iyo darajada saddexaad darajooyinka maxkamadaha kala duwan garsoorayaashaas magacaabistooda dastuurku wuxuu siinayaa xulistooda iyo vettingkooda wuxuu siinayaa guddiga adeega garsoorka markii la dhiso magacaabistana sida qodob ku cad qodobka 9aad farqadiisa ja wuxuu leeyahay waxaa soo jeedinaya madaxweynaha waxaa soo jeedinaya guddiga adeega golaha adeega garsoorka ayaa soo jeedinaya xubnaha noqonaya golaha adeega garsoorka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana wareegto ku magacaabay taas waa magacaabista qodobka 109A wuxuu aasaasaya markii ugu horeysay oo golaha adeega garsoor dabcan aasaasaya charterkana wuu lahaa wuxuu aasaasaya dhismaha golaha adeega garsoor oo 9 xubnood ka kooban farqadiisa 6aad qodobkaas waxay qeexaysaa shaqada dastuuriga ah ee golaha adeega garsoorka saaran oo ah inay soo xulaan ama soo shaqaalaysiiyaan xubnaha golaha adeega garsoorka ruqseeyaan amaal mariyaan anshax mariyaan bedelaan taasoo macnaheedu tahay inay iyagu maamulaan garsoorka inay korka maamulaan magacaabista laakiin markii ay sameynayaan ayagu waxay u soo jeediyaan madaxweynuhu markuu ku qarcana uu magacaabaa ma loo maray waay marka su'aasha hadday marka su'aasha aan ku weydiinayo ahayd dariiqa la maray ma saxan yahay mise ma saxna waxaa jirta marka meesha kale muhiimka waxaa waaye golaha adeega garsoorka ma dhisna waa waaqici madaxweynuhu inuu la tacaalo loo baahan yahay waaye dalku inuu la tacaalana loo baahan yahay golihii adeega garsoorka in la dhiso iyada laftirkeedu waxay leedahay caqabado
dariiqa loo maraayo ah oo dastuurka iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka ku saabsan 9 xubnood waxaa xubin ka ah golaha adeeg garsoorka ee garsoorayaasha sarsare oo maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare magacaabi soo xuli lahaa ayaa waxaa xubin ka ah garsoorayaasha laftirkooda guddoomiyaha maxkamadda sare laftirkiisa iyo dastuurka iyo human rightska qofka haysta marka waxaan rabaa waxaa faham u baahan golihii adeega garsoorka inuu dhismo caqabado habraaca ku saabsanaa ka jira oo dadkii ka mid noqon lahaa golaha ayaa waxay u baahan yihiinba in la keeno taa marka waxay keenaysaa marka ugu horeysa nidaam ad hoc ah ama kumeel gaara in la raaco nidaam ad hoc ah ama kumeel gaara in la raaco marka waxaa meesha yaalla jikan and egg yaa hor yimid qofkii xubinta ka ahaa guddiga ayaa haddana la magacaabaya marka waxay noqonaysaa marka ugu horeysa gole adeeg garsoor oo guddoomiye maxkamad sare iyo human rights commissioner ama qofka xuquuqul insaanka commissionkaas u sareeya xeer ilaaliyaha qaranka iyo laba garyaqaan ururada bulshada rayidka 9 xubnood inay saa ku yimaadaan marka labada qofka caqabadu ka jirto oo guddigana xubinka magacaabayo guddoomiyaha maxkamadda sare marka xilliga koobaad ay tahay in la asaaso caqabada guddiga iyo waxa hortaan waan u imaan doonaa laakiin waxaad yani hadalka aan ka dhadhansanayaa in curfiga hadda yani baahida yani uu keena in xilka laga qaado yani ayadoon loo soo marin yani habraaci marka hore yani in la magacaabo sida ku xusan yani dastuurka mana cusbo madaxweynihii horeba habraaca laftirkiisa uu maray wuxuuna meesha keenay Ibrahim Suleymaan Iidle oo isla habraaca hadda madaxweynaha marka wax lagu ceebeynaya maba taaganaad leedahay yani nidaamkan kumeel gaarka ah inta golaha adeeg garsoorka laga dhisayo waa nidaam soo jireena oo Sheekh Shariif baa ku keenay ilka xaraf curfigan baana isku dhaqaya madaxweyne xasan sheekh baa ku keenay iidle haddana baasha lagu keenay marka waa nidaam soo jireen maxaad ka leedahay hadalkiisa bismillahi raxmaan raxiim marka hore dhegeystayaasha sharafta leh iyo xildhibaankayga qaaliga iyo adiga waa idin mahad celinaya waxyaabaha horta arrinkan ku saabsan marka waxaan rabaa wax yaroo afeefa inaan la hormaro annaga bulsho rayid ahaan mana difaacayno ujeedkeennuna ma aha qof shaksi ah صح يعني kan hadda xilka loo dhiibana ma diidanin oo shaksi ahaan uma diidanin kan xilka laga qaadana shaksi ahaan uma taageerin waxaan rabaa intaas inay macnaha hordhac ahaato annagu waxaan nahay bulsho rayid oo u qareenta inta badan sidii dowlad wanaag loo gaari lahaa marka annaga mabaadi'da ama afkaarteenna ay ku salaysan tahay waxaa waaye in dalkan maamulkiisu wanaagsanaado ma aha waxaan ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir ama guddoomiye maxkamadeed wax shaksi ah aan ama ku diidanahay ama aan ku taageerayno maaha qodobkaa marka laga tago sharcigu wuxuu u dhaxeeyaa qofka muwaadinka caadiga ah oo miskiinka ah oo awoodow isku difaaca lahayn oo shuruucdii dalka u yaalay lagu xukumayo xabsi lagu gelinayo maxkamad lagu saarayo marka uu qaldamo uu sharciga jabiyo su-aashu waxay tahay marka ninkii awoodda lahay sida madaxweynaha iyo prime minister iyo baarlamaanka iyo maxkamadda haddii ay sharciga ayaga laftigooda jebiyaan dadkii loogu talagalay inay ilaaliyaan ay jebiyaan waa mas-uuliyad saaran mujtamaca shacabka iskale oo dowladda aad arkaysa rasmiga asaaskeedu waxaa waaye waa shacabkaa laga rabaa inay dhahaan waxaas annagu xeerkii aan dhigannay sidii uu ahay waa naloogu dhaqay inay dhahaan iyo nalooguma dhaqin marka qodobkan markaan dib ugu soo noqdo madaxweynuhu wuxuu haystay ku dhowaad 1 sano iyo bar fursad ah oo wax kasta oo caqabada oo ku hor gudban guddiga adeega garsoorka oo uga wareejiyo lama dhahayo hadduu madaxweyne 3 bilood asoo jira oo arrinkan ku fududaa lahaa waxaa la dhihi lahaa kursigu ku cusub yahay waqti ma helin oo wax ku saxo 1 sano iyo baro madaxweynuhu haystay wuxuu haystay fursad oo ku abuuro ama ku yani lagu dhiso guddiga adeega garsoorka
xogta annaga aan hayno oo aan soo aruurinay oo dad badan oo ayaga laftigooda siyaasiyiin ahay oo madaxweyneyaal soo maray oo ra-iisul wasaarayaal soo maray oo wasiirro soo maray xogtaan aruurinay ma aha kaliya madaxweynaha hadda jira kuwii ka horreeyey iyo kan hadda jira midna ma rabaan in la abuuro yacni garsoor madax bannaan dagaalka cidda waxa lagu hayaa oo sababta aan guddiga garsoorka loo dhisayno ma aha inaan la dhisi karin guddiga garsoorka waxay abuureysaa guddigaas waxaa abuurayaa in garsoorku ka madax bannaanaado awoodda fulinta waxaa laga cararaya dadka siyaasiyiinta dhammaantood ka cararayaan oo qiilka loogu sameynaya mararka qaar loo adkeynayo xitaa markii dastuurka la daraafgaraynayay waxyaabo aad u adag looga dhigay waxay ahayd kuwani waxay xisaabinayaan siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta sare dalka ayay waxay ku xisaabinayaan sharciga ku qaadayaan doodeennu marka waxa waaye waa maxay sababta madaxweynuhu meeshii oo wadada saxda ka aadi lahaa oo guddiga adeega garsoorka caqabadaha ku horgudban uga wareejin lahaa kabacdina qof u qalma inuu maxkamadda sare hogaamiyo oo maxkamadaas maaragtay jaajka ugu sarreeya chief justice ku noqon lahaa waayo sababta oo u aaday wadadaas u aadi waayey oo wadadan kale u doortay wadadan kale wuxuu u doortay sababtii kaliftay Jawaari in kursiga asagoo gudoomiye ah oo la doortay in siyaasiyiin la yiraahdo kada kursiga inta cadaadis la saaro waxaa la rabaa awoodii oo fulinta iyo awoodii sharci maaragtay xeer dejinta iyo awoodii garsoorka inay hal jeeb gasho waxa mee go'aankan ka soo uraya oo bulshareed ahaan annaga xanuunka nagu haya waxa waaye awoodii la rabay inay kala madax bannaanaato ayaa la rabaa inay hal gacan gasho laakiin madaxweynuhu wuxuu haystay fursad oo guddiga adeega garsoorka caqabadaha ku horgudban inta baarlamaankii isu keeno iyo garsoorkii wixii dhan isu keeno yiraahdo keena caqabadahan ku gudban sharci cusub ka soo daraaf gareey ka bacdina markii baarlamaanku baas gareeyo ka bacdina waxay ahaan lahayd si sahal waxa la soo marsiin lahaa ujeedku waxa waaye madaxweynayaashii ka horreeyeen uma socon inay dhisaan madaxweynaha hadda joogana ficilkiisa waxa ka muuqda inuusan soconin okay marka waa boqtiyo rasmiga ah waa taa yani adinka xildhibaanadii waxaad tihiin golihii sharci dejinta labadiin aqalka sare iyo aqalka hoose walow aanan garanay in laydinka tala bixiyey ka hor intuusan madaxweynaha ku dhawaaqin wareegtadan uu xilkaga qaaday gudoomiye iidle uusan ku soo magacin gudoomiye baashi so sanad iyo 3 bilood fursad buu u haystay inuu idin hor keeno uu yiraahdo bal soo dhisa guddiga yani adeeg garsoorka sidaana marka yani xilka looga qaado so ma mudnaa marka yani inaad dadejisaan yani haddii adinka laftirkiin aad rabtaan in garsoor cadaalad ku salaysan oo hanaan leh yani hufan in yani dalka uu ka hirgalo adinka laftirkiin golihii sharci dejinta soo bush yani cadaadis kuma saari lahayn madaxweynaha ama hay-adda ama waaxda fulinta si ay usoo gudbiyaan yani ismaan dooda oo ku saabsan dhismaha golaha adeeg garsoorka iyo duruufta keentay mar walbana keenta ilan saaxiibkiina waa taabtee mar walbana keenta in nidaam ku meel gaara garsoorayaasha sarsare lagu magacaabo maadaama golihii adeega garsoorka oo awoodda dastuuriga u lahaa uusan meesha oolin muddo dheeray jirtay madaxweynaha hadda jooga muxuu waxa uu sameey waayey iyo hal sano iyo dhowr bil uu joogay iyo jawaabteeda aniga beli laakiin golihii sharci dejinta ka tirsantahay mudan awoodda u leedahay yani cala aqal golihii sharci dejinta tay dalka yani dalka sharciga yani adinka gacanta ku hayo su-aashaas oo madaxweynaha ku saabsanaan anigu jawaabteeda layga rabin aan ka wadaa haye mas-uuliyad waana saaran tahay golaha shacabka ummadda soomaaliyeed baan nahay dhismaha golaha adeega garsoorkana baarlamaankii 9aad baa 2 jeer celiyey xubnihii sharcigana waa samaysan yahay 2 sharci baa jirto la xiriirta mid waa midka guddiga lagu dhisaayo midna waxaa waaye nidaamka garsoorka ayuu xeeriyaa oo waa xeerkii lagu shaqaynayo labaduba midna baarlamaankii 9aad baa guddiga kii sharciga lagu dhisaayo baarlamaanku waa ansixiyey kii kalena baarlamaanka haysta baarlamaankii 9aad baa soo gudbiyey baarlamaanka 10aad buu horyaala guddiga golaha adeega garsoorka 2 jeer baa la hor keenay baarlamaankii 9aad 2 jeerba way celiyeen waana siyaasadaysneed baarlamaanka hadda jira waxaa laga bilaabay maadaama caqabadihii lagu celiyey kii hore inta lagu celin lahaa oo xubnihii lasoo celin lahaa horta caqabadihii laftirkooda in lala tacaalo caqabadihii in lala tacaalo waxay u baahatay habraaca in lagu heshiyo wasiirka cadaaladda wuxuu baarlamaanka hor yimiday markii 3aad oo arrintan baarlamaanku uu habraaca iyo optionska kala duwan ee ka jira uu kala hadlayo
madaxweynuhu muxuu u sugi waayey inta habraaca iyo looga heshiinayo golaha adeeg garsoorka laga samaynayo su-aashaas sideedaba wax madaxtooyada iskale madaxweynaha ama afhayeen uu leeyahay ama isagay ururada bulshada ay dabcan way heli karaan may weydiin karaan laakiin aniga waxay la tahay adinka kaga dhow laakiin golihii sharci dejinta madaxweynaha u yeeri kara mudan annaga wasiirkaan u yeernaa madaxweynaha arrintaan oo kale uguma yeerno arrinta laamaha fulinta oon anagu ku leenaha kormeerka baan u yeernaa arrintaa marka golaha shacabka ama baarlamaanka sagaalaad ha ahaato ama baarlamaanka tobnaade hadda anigu aan xubinta ka ahay ha ahaato dhaliishaas way imaan kartaa baarlamaankana way imaan kartaa gaabisna wuu jiraa waxaana ka shaqayn doonaa in sida ugu dhaqsiyaha badan golaha adeeg garsoorka dhismihiisa lagu dedejiyo su-aasha marka waxay imaaneysaa oo walaalkay uu sheegay arrinta uu kor maray oo ku saabsan qofka wadaniga ahi muwaadinka ah xuquuqda uu leeyahay arrinta ku saabsan aragtida uu ka qabo waa ku waafaqsanahay waana aragti sax ah madaxweynuhu muxuu xilligan marka uu tilaabadaa u qaaday oo garsoorka sare garsooraha sare ee maxkamadda dastuurka 5 garsoor ay leedahay marka mid ka mid oo magacaabay madaha garsoorayaasha kale waa dhama yihiin maxkamadda dastuuriga oo sharcigeedii la ansixiyey oo iyada laftirkeedu soo dhisid rabta iyada laftirkeedu waa jirtaa oo lala sugaayo golaha adeeg garsoorka now waxaan u baahannahay dhinaca siyaasadda oo saaxiibkii uu kusoo xiray jawaari iyo awoodda oo hal jeeb gelaysa dood siyaasiyiinta u furan waayo waana jirtaa waana jiri kartaa dadka siyaasiyiinta ahu way isku eedeeyaan in qof uu awoodda maroogsanayo waana dabciga caadiga ama curfiga caadiga ah dadka siyaasiyiinta ahu markay is eedeynayaan laakiin saaxiibkay diini oo waxaan ka filayaa inuu isagu u advocate garayo xuquuqda ka maqan qofka muwaadinka maadaama uu ururadii bulshada uu matalayo su-aasha waxay taa marka cidda baawarka iyo jawaari radistiisa iyo baawarka gacan gelaya taa hay noo dambaysa laakiin madaxweynaha baarlamaanku xataa ma ogola Okay, saa u dhacdo laakiin mas-uuliyadda aan isleeyahay saaxiibka ka sugaa okay xildhibaan iidow madaxweynaha markii stadium conis uu khudbad ka jeedinayay markii Febraayo Maars inay heedan filaya wuxuu ballan qaaday muddo 30 ama 3 bilood 9 cisha inuu garsoorka wax kaga qaban doono sanad iyo 3 bilood baa ka soo wareegtay sanad iyo 3 bilood markii yani dulqaadkii ama yani awoodii la rabay in lagu soo dhiso يعني جودي هذه الجرسور كأسان وأنسحيه يعني حليان واجب يسوق جوته حتى هذه حركة لها قاضي لها وظيقة صح مودة صح الله مر لها أنا واحد مدة نوع ما إن يعني جابس أو كدري صبر كامر يعني مدحونا هالك السنة يدبر وصوري إنه إذا كسر على هذيك اللي بين جلا شرعي دجنت يعني أقل سريع أقل كهوسة إنه إذا كسر عليه يرابل أنت صوب جراية من كرات شو واي مسوا هرتا هي لها دستوري هي دلك madaxweynuhu xiriir shaqo ayuu leeyahay garsoorka fulinta iyo xukuumaddana wuxuu leeyahay xiriir shaqo sharci dejintana wuxuu leeyahay xiriir shaqo sidaasuu haykalka u samaysan yahay madaxweynuhu waa run inuu ballan qaaday in cadaaladda wax laga qabanayo muddo gaaban laakiin waxaa xusid mudan oo la rabaa qof kasta inuu ogaado madaxweynuhu tilaabo kastoo nidaamka garsoorka la xiriira isaga keligii go-aan kama gaari karo in habraaca lagu heshiiyo shuruucda kala duwan ee sida loo dhisayo golaha adeeg garsoorka oo aan iswaafaqsanayn muwaafaqo loo sameeyo shuruucda qaar kamid a amendment lagu sameeyo madaxweynuhu absolute power ama awood gaar ah oo golaha adeega garsoorka in la dedejiyo ku leeyahay oo eedeedu ay qabato aniga ima muuqato laakiin annaga oo ah golihii sharciga golihii shacabka Soomaaliyeed oo golihii shacabka iyo xukuumaddii oo ay ahayd sharciga iyo habraaca inay guddiga aniga aan ka tirsanayo guddiga cadaaladda inay isku waafaqaan meesha gaabis baa ka jira arrintaana horaan u sheegayo yaa iskale marka gaabiska mas-uuliyaddeeda waxaa iskale golaha shacabka oo runtii baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 10aadba aysan laba jeerna ay celiyeen haddana sanadkii iyo muddadii koobnayd oo la joogana ayna suuro gelin in sharciga golaha la meel mariyo si
garsoorayaasha sarsare heer federaal loo soo marka adinka laftirkiin cuuriyaaminta qayb baad ka tihiin ay ka dhigan tahay yani maadaama adinka gaabs aad ka samaysan aad ka jiifateen mas-uuliinda idinka saaran tahay yani maxamed ujeedada cuuriyaamin maaha dowladnimadu waa wax dariiqo iyo shuruuc iyo dastuur baa haga waxaa in lays waafajiyana wakti bay qaadanaysaa annagoo dabcan golaha shacabka iyo aynan cuuriyaamin ka ahayn ayaa haddana in la dhiso golaha oo habraaca lagu heshiiyo oo xubnihii siday ku imaanayeen lagu heshiiyo oo arrintan la xiriirta qofkii ka mid noqon lahaa guddiga ayaa haddana guddiga magacaabayaan xal loo helo oo nidaam weliba meel gaar ah oo lagu magacaabo nidaamka dastuurka ku cad laguma magacaabi karaba nidaam ku meel gaar ah oo siyaasiyan laysku waafaqsan yahay lagu magacaabo oo weliba la tashi maadaama waxaan heer federaal leeyihiin la tashi dowlad goboleedyada ku saabsan u baahan iyo modelka justiceka ama hanaanka cadaaladda jamhuuriyaddu ay yeelanayso oo iyada laftirkeedu heshiiskeedii hadda jawhar lagu gaaray dhowr bilood ka hor dhammaystir iyo hirgelinna u baahan arrimaha hanaanka cadaaladda iyo modelka federaalka oo soomaaliya ay qaadan doonto iyo golaha adeeg garsoorka samayntooda iyo iswaafajinta habraaca golaha adeeg garsoorka lagu sameynaayo arrin sahlan oo baarlamaanku uu bil iyo 2 bil samayn karo habraacaas adinka aad diideen oo baarlamaankeena tobnaad iyo waxaad ku diideen dhismaha guddigan gudoomiyadeeni maxaa ku jaban yani iyadoo maslaxadda qaranka la fiirinayo waxaa jirta maslaxad adinka ama guud ahaan anaga aan noo muuqanin bulshada haddaan nahay oo madaxweynaha u muuqato asagoo marka maslaxadda qaranka dadka iyo diinta asagoo marka yani dhowraya maxaa diidaya in gudoomiyaha maxkamadda sare xilka laga qaado buuqa intaan yani laga sameynaya maxay tahay yani gudoomiyaha xilka waa laga qaaday sharci looma marin iyo بسم الله الرحمن الرحيم horta aadaan ugu mahad celinaa xildhibaanka inuu liista mas-uuliyadda qayb ka mida dareemay inay tahay mid oo golaha shacabka uu ka gaabiyey waana loo baahan yahay qofka mas-uulka mararka qaar hadduu dhaliil dareemo inuu qarto way ka sahlan tahay way ka fiican tahay inuu inkiro yiraahdo mas-uuliyadda ma qaadanayo midda labaad oo ku saabsan yani hadalka statementiga ama yani doodaha siyaasiyiinta iyo tan bulshada rayidka maxay isu ekaanayaan waxaa laga yaabaa annaga mas-uuliyadda maalan hay-adda anigu aan ka tirsanahay mandatekeeda haddaan tusi lahay su-aashaasi ma weydiiyeen annaga shaqada koowaad oo aan ka shaqayno waa dowlad wanaag in separation of power la ilaaliyo waa mas-uuliyadda koowaad oon ka shaqayno haddii awoodaha ay kala madax bannaanaan waayaan waxaa ka dhalanaysa khatar maamul yani konton iyo saddex wax yaran dhamaysto konton iyo 4 xildhibaana golaha wasiirada ka tirsan awal 42 hore ugu sii jirtay haddana 12 lagu daray meeshaas qofka oo wax fahmaya oo siyaasadda iyo dowlad wanaagga ka fekeraya wuxuu fahmayaa in laanta fulintu marka la rabto inay difaaceeda baarlamaanka gudihiisa adkayso qodobkan su-aasha hadda aad weydiido markaan ku soo laabto xildhibaanka waa siinaya macnaha markaan ku soo laabto waxa waaye madaxweynuhu mas-uuliyadda koowaad ee uu qaranka u hayo waa inuu dastuurka ilaaliyo waaba mas-uuliyadda koowaad ee uu dalka u hayo danta qaranka uu hayo tan ugu muhiimsana waa inuu dastuurka ilaaliyo shacabka ama bulshada rayidka mas-uuliyadda koowaad oo saarana waxa waaye in ay maaragtay la xisaabtamaan madaxda qaranka meesha ay ku fiican yihiinna ay ku ammaanaan meesha ay ku qaldan yihiinna ay dhahaan madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama wasiir ama xildhibaan meeshaas waa ku qaldan tihiin xeerkii according sida uu qabo ama macnaha xeerka noo degsan mas-uuliyadda koowaad oo na saaran waaye madaxweynahana mas-uuliyadda koowaad oo saaran waxa waaye wax kasta oo xeerka yani ilaalintiisa asaga shaqadiisii koowaad waaye haddii marka la waayo cid wax u sheegta madaxweynaha ama dowladda dadka madaxda noo ah haddii la waayo bulsho rayidba lama abuurin sababta loo abuuray mabaadi'da bulshada rayidka loo abuuray waa inay iftiimiyaan meesha gaabisku ka jiro madaxweynaha asagii oo ay ahayd inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerka iyo qawaaniinta dalka u degsan inuu fududaysto oo fikirkii siyaasiyiintu ay qabeen uu qaato waxaan ka sugayna maaha
waa qodobka labaad intaada qodobkan intaada ka gudbin waxaad soo hadal qaaday laanta fulinta oo xildhibaano ay ka mid yihiin dastuurka hadda ka hor yaalla oo dastuurka galgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waa ogol yahay in baarlamaanku uu xukuumadda ka mid noqdo marka haddii doodaadu ay tahay sharci ku saabsan tahay sharcigu waa ogol yahay laanta fulintu inay xasilooni hesho parliamentary democracy waxa la yidhaahdo dalkeena ku shaqeeya oo ah xukuumaddu waa inay mar walba kalsooni ka haysato baarlamaanka dariiqa ay marayso oo ah in golaha fulinta ama golaha wasiirada xukuumadda inay baarlamaanka mid noqdana sharcigu waa ogol yahay laakiin su-aasha okay sharci hadday okay waa sax waaye laakiin haddana waxaa la rabaa in la akrin karo qofka siyaasiga ah mawaaqifta uu qaadanayo macnaha ay samaynayeen bulshada u sameynaya waa in la akrin karo waana in la sheegi karo waxayna ka mid tahay dastuurka laftigiisa ku jirtaa xorriyadda hadalka waa la ogol yahay xorriyadda hadalka haddaan la ogolayn micnaheed ani adigu TV inta isugu nimaadno ma doodne qodobka labaad maadaama adigu aad tahay xildhibaan maadaama aad tahay mas-uul baarlamaanka ka tirsan oo gudda cadaaladda ka tirsan doodan waxay ahayd adiga inay kaa timaado inay aniga iga timaado maahay waxay ahayd guddiga adeega garsoorka inaan xeer beegtigii oo xeerkii aan la marin oo maaragtay waddadii loo soo maray aan soo marin adiga inay doodu kaa timaado haddii cid ay jirto mas-uuliyaddeeda la rabo in lagula xisaabtamo adiga inay kaa bilaabatay in adiga aad la xisaabtanto madaxweynaha iyo laanta fulinta sharciga over laba mas-uuliyadooda maaragtay qaranka u haysaa baarlamaanka u haya midna waa inay xeerarka sameeyaan midna waa inay ku kontroolaan dawladda inay xeerarka si waafaqsan ku shaqaynayso marka dayacaad baarlamaanka ka timid oo gaar ahaan guddiga cadaaladda baarlamaanka ka timid hadda doodaan ay ku tahay hadday madaxweynaha waqtiga ku intuusan go-aanka gaarin kala talin lahaayeen anigu waxaan aaminsanahay arrinkan maanta ma dhaceen haddii ay kula xisaabtami lahaayeen guddiga adeeg garsoorka cidda u xil saaran ilaa ayagaas xeer inay sameeyaan laga rabaa caqabadaha ku horgudban oo xeerka inay ayagu keenaanaya guddiga cadaaladana waad ka tirsantahay marka horta mas-uuliyadda la dayacay ayaa dooda halkan keentay mana rabo inaan idhaahdo kaligaha mas-uuliyadda dayacay laakiin waxaan rabaa guddiga maaragtay cadaaladda dhammaantiisa inaan u soo jeedino micnaha inay tahay doodan heerkan waxaa na soo gaarsiiyey in dastuurka la isku qabto qarsantii marka yani inaad qayb aad ku leedihiin hore inaad qartay guud ahaan yani baarlamaanka laakiin gaar ahaan haddan yani guddigeena cadaaladda mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed aan u hayno oo runtii dee mas-uuliyad aan yarayn ah waana gudanaa waana ka gaabinaa arrinta la xiriirta dowladduna waa wax laysu dhiidhiibo baarlamaankii sagaalaad anigu hadda xubin kama ahayn oo diiday golay adeeg garsoorka marka waxaan ahaa xogayaha joogtada wasaaradda cadaaladda shaqaale dowladdaana baarlamaanka tobnaad oo anigu aan ka mid ahay wuxuu dadaal ku bixiyey in intii mar kale lagu laaba lahaa jidkii qalloocnaa ee baarlamaanku markii xubnaha golaha adeeg garsoorka la keeno kusoo celin jiray in habraaca marka hore habraacuna waa taan kuu sheegayoo waa qofaa laba meel ku kala jiro waana hal qof taa marka waxay u baahan tahay habraaca in laga heshiiyo oo wasaaradda cadaaladda iyo golayaasha waxaa laga yaabaa golaha shacabka markuu soo ansixiyo in aqalka sare habraacaas uu haddana dowladdu marka ma aha wax nidaamka dowladda iyo shuruucda dalka u degsan ayaan ahayn wax qof la ordi karo madaxweynuhu lama ordi karo wasaaradda cadaaladdu inta la soo ordo golayaasha ma marsiin karto laakiin dowladnimadu waxay u baahan tahay joogtayn baarlamaanka sagaalaad hadduu ku guuldareystay inuu sameeyo golaha adeeg garsoorka baarlamaanka tobnaad labada aqal leh kii hore hal aqal u lahaaye waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysto golaha adeeg garsoorka in la sameeyo maxkamadda dastuuriga ah ee qabsiga khilaafka siyaasiga ah ee soo laalaabta in la sameeyo hay-adaha kale oo cadaaladda oo aan maxkamadaha kaliya ahayn iyadana in la adkeeyo oo ururada bulshadu xataa ay qayb ka noqon karaan ilaan siyaabo kala duwan ee cadaaladdu iyo hirgasho ay ugu lug leeyihiin arrinta ku saabsan xildhibaankay ahayd inuu doodan keeno doodan baarlamaanka inooga furan tahay way taallaa waan u yeernaa golaha ka dooda guddiga anigu aan xubinta ka ahay
iyo golaha weyn oo dee baarlamaanka na 2 jeer ay arrintu timid 3 jeer ay timid hal sano gudihiis guddiguna maalin kastoo ka fariistaa wasaaradda iyo guddiga iyo golaha kale oo aqalka sarada nidaamku marka aad u dheer yahayo private sectorka ama waxaa laga yaabaa inuu qof go-aan gaaro qofkaa go-aankiisuna uu hadda meel maro berrina uu natiijo yeesho dowladnimadu waxay leedahay nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo hay-ado runtii dee waana sababta loo wasiirkiina ma shaqaynaayo baarlamaankiina ma shaqaynaayo yacni cid la xisaabtamaysa inaysan jirin ee halkaas ka muuqata waxay ahayd wasaaraddu wixii wasaaradda ku dhiman inaad inta u yeertaan wasiirka dhahdaan muddadaasaad haysataa muddo 3 bilood gudahooda waa inaa wax alla wixii shuruuc ahoo u baahan in wax laga bedelo aad keento haddii baarlamaanka guddigiina cadaaladda oo wasiirka la xisaabtami lahaa maanta meesha ay taagantaha ma taagnaateen haddaad u fududay lahaydeen wasiirka cadaaladda shaqooyinka uu idinkaga baahan yahay oo anigu aan xoggaal u ahay oon xitaa marar badan aan sheekaysanay yacni kuwaan iyo kuwii ka soo horreeyaba yacni mar walba waxay ka cabaadayaan baarlamaanka yacni waana sababta kalifaysa annaga bulshareed ahaan inaan ku tuhunno baarlamaanka iyo laanta fulinta inay isku milmeen sababtoo waxay ahayd ninka wasiirkaah cidda uu ka cabsado oo uu ka gambado oo uu maaragtay subax kasta markuu shaqada aadayo wadnaha xanuun ku haya inay baarlamaanka hadaaneen waxay ahayd guddiga cadaaladda oo xubinta ka yahay inuu wasiirku ku khasbanaado waxa ay rabaan inuu waqtiga ay ku rabaan oo ku keeno laakiin haddii mas-uuliyaddii ay baarlamaankiina dayaceen wasiirkiina dayacay madaxweynihiina wax aan sharciga oo sharciga waafaqsanayn uu yidhi kuwii ka horreeyaba saanay wax u sameey jireen anna kuwii kalaan ku daysanaya yacni macnaheedu waxa waaye ratiga weyn saanqaadkiisu leeyahay kuwii iga horreeyaba qaladkaanay galeen anna waa gelaya yacni qiilka kale hadda siyaasiyiintu haystaan waxa waaye guddigan in la sameeyo lama rabo in golaha maaragtay garsoorka la madax banaaneeyo lama rabo labadaba lama rabo marka maxaa kalifay 17 sano oo lasoo dhaafay in khilaafka guddiga adeega garsoorka uu taagan yahay hadday maamul goboleed tahay waa diidan yihiin hadday maaragtay ay dowladdii dhexe federaalka tahay waa diidan yihiin 17 sano yacni wax ku filan in labada guddiga adeega cadaaladda iyo guddiga wasaaraddu intay is hor fariistaan ay waqti go-aan ajandaa ku heshiiyaan ay sameeyaan waa wax aad u basiida كل هو قرصين يعني markaan waxaan ka qabaa madaxweynaha laanta fulinta iyo laanta sharci dejintu sidii ay ahayd oo shacabka ay wakiilka uga ahaayeen ulama xisaabtamaan ayaga u fududaysan ayaga u fududaya walaal diini arrintan hadda aan ka doodayno dhismaha adeeg garsoorka iyo magacaabista garsoorayaasha heer federaal oo hadda aan waqtiga badan gelinay arrinka weyn oo cadaaladda la xiriirta ay jirto waxaa jira dalkani wuxuu lahaan jiray nidaam kaluuna hadda leeyahay waxa la yidhaahdo siyaasadda cadaaladda jirta horta kow waa in hanaanka cadaaladda dalkaani qaadanayo justice modelka horta in aragti siyaasadeed maxkamadaha darajooyinka aan yeelanayna maxay noqonayaan jurisdictionska ama awoodaha maxkamaduhu waxay leeyihiin heerar waagi hore waxaan lahaan jirnay maxkamado 2 heera ama 3 heera hadda waxaa laga yaabaa in nidaamka cadaaladda oo dabcan tahay in laga hadlo oo laga heshiiyo oo ayna dabcan dowladda federaalka kaliya xataa ayna ku xirnayn oo labada aqal oo hadda aan ka doodaynay kaliya aysan ku xirnayn oo even golaha adeega garsoorka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo golayaasha hadda federaalka aan ka hadlaynay arrin ka baxsan oo ahmiyad leh oo even la xiriirta dhismaha golaha adeega garsoorka la xiriirta iyo maxkamadaha heerarkooda iyo jurisdictionskooda awoodaha ay leeyihiin maxaa maxkamad heer federaal gelay maxaa maxkamad heer dowladeed gelay maxaa maxkamad heer degmo gelay meeqa heeraan yeelanaynaa waa siyaasad in laga heshiiyey ay tahay waay now taa marka waxaan rabaa inaysan ahayn arrintu arrintu inaysan ahayn may mas-uuliyadda waxaa iskale mas-uuliyiinta la doortay iyo kuwa la magacaabay oo soomaaliyada iskale meel kastoo ay joogaan marka xeer la dejinayo ayaa ka mas-uula diini horta ma ogtahay dowlad federaala keliyana hadda ka fikriyaa laga yaabaa dowladda hadda federaalka xamar joogta keliyana ka fikriyaa laga yaabaa hanaanka cadaaladda dowlado kala jira hanaanka cadaaladda
oo dalkani la yeelanayo maxkamadda gobolka banaadir iyo midda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo fariisanaya maxkamadda xamarweyne waa ka badan yahay hanaanka in laga heshiiye waaye maxkamadaha aan yeelanayn in laga heshiiye waaye awoodahooda iyo kiisaska mid walba ay takhasuska u leedahay in laga heshiiye waaye markii siyaasiyan looga heshiiyo ayaa xeer u samayn ay u baahan tahay haddana in la xeeriyo okay waqti marka waxaan rabaa inaad ka fikirto wax ka badan maxaa golaha adeeg garsoorka loo dedeji waayey awoodda fulinta ayaa iyo awoodda golaha sharci dejinta ayaa isku milmay ma laha xitaa haddii hadda la magacaabay guddoomiye maxkamad sare awood uu garsooro xilka uga qaado ma leh oo uu ku hubiyo inuu qofkani yahay qof nadiifa oo shaqadiisa gudanaya inuu qof musuq maasuqa yahay isagu marka uu yimaado guddoomiye maxkamadda sare musuq maasuqun buu ku biiraya ciddii awoodda iska lahayd inay garsoorayaasha la xisaabtamaan si cadaalad loo helana meeshay ka maqan tahay marka sideen ku aaminaa go-aanka la qaatay inuu yahay go-aan lagu xaqiijinayo cadaalad sideen ku aaminaa isla qodobkaas baan rabay waa runta ciddii la xisaabtami lahayd oo garsooraha la xisaabtami lahayd waa guddiga adeega garsoorka waay garsooraha hadda maxkamadda ninka dadka shacabka waxaa loo qaldaa oo annaga mas-uuliyadna ka saaran tahay inaan iftiimino sidii kaanama guddoomiyaha maxkamadda sare oo awood u leeyahay inuu corruptionka ka jira garsoorka uu xaliyo ma laha guddoomiyuhu wuxuu leeyahay inuu qaado yacni dacwaddii loo keeno maxkamadda sare loo keeno inuu maamulo awood kale ma laha ma kama qaadi karo xitaa garsoorayaasha isaga la shaqeeya xilka kama qaadi karo hore u sheegay marka ciddii shaqada qaba lahayd oo garsoorka iyo cadliga samayn lahayd sababta loo hagaajin la'yahay oo lagu mashquulayo laga dhigayo in guddoomiyaha maxkamadda sare uu yahay nin asagoo hadda awood u leh inuu maaragtay maasuqa ka jira garsoorka wax ka qabto ma laha midda labaad adigu waxaad ka hadlaysaa in garsoor wanaagsan iyo siyaasad la gaaro oo dalka dhan ah war garsoorkii magaalada muqdisho kaliya had wax laga qaban la'yahay meeqa sano waayo meeqa dowladoodaa soo martay annagu ma eedaynayno dowladda hadda jirta kaliya waxaan eedaynaynaa dowladaha kalena waa eedaynaynaa inaan ku raaciyo arrin taabtayaan rabay sheego arrinta la xiriirta awoodda garsooraha sare oo la magacaabay waa runtiis qodobka 109 farqadiisa 6 ayaa sheegaysa in golaha adeeg garsoorku ay leeyihiin awoodaha magacaabista iyo ruqsaynta iyo abaalmarinta iyo dalacsiinta ayaga dhexdooda marka waa garsoorka oo dhan garsoorayaasha heer federaal laakiin garsoorayaal kale iyo oon heer federaal ahayn oo ay tahay in ila dalkii nidaamkii uu lahaan jiray baa laga guuro nidaam federaal la qaatay saaxiibkay diinina waa ku saxan yahay oo annagu maadaama mas-uuliyiinta aan nahay waalidkana waxaa khuseeya mas-uuliyad weynaa saaran maadaama annaga mas-uuliyaddii aan saaran caruurtana waxaa khuseeya iyaga natiijada shacabka soomaaliyeed oo diini uu doode u yahay waxaa khuseeya natiijada marka maalin walba cadaalad darro iyo dhibaata haysata laakiin mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo madaxda ah oo ama sharci dejina ama fulina waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn oo ah hanaan shaqayn kara oo waari kara oo dalka oo isla shaqaynaya haddii hadda maxkamadda heer federaal la hagaajiyo oo jurisdictionska ama awoodaha ay ku dagaalaan awoodaha heer dowlad goboleed aan la kulmi doono sanadaha soo socda markii nidaamka cadaaladda oo heer federaal lagu heshiiyo marka waa garaawsanayaa mas-uuliyadda iyo mas-uuliyad daliisha ka imaan karta shacabka laakiin haddana waxaan rabaa inaad adiguna fahamto mas-uuliyaddu inay ka weyn tahay in ama يعني isla su'aashaas waa xiriir loo baan rabaa yani waxaan rabaa inaan ku soo minguuriyo yani prof Cabdi Ismaaciil Samatar hadal uu sheegay uu yiri yani gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare inuusan ahayn nin hore ugu soo shaqeeyay dalka isla maraantaana laga soo bootiyay un yani maxkamadaha kale toos loo keenay maxkamadda sare ayna tahay yani hay'adda ugu sareysay garsoorka maanta yani taana ay tahay jariimo weyn adinka xildhibaanadii golaha shacabka tiin haddii ay ku caddaato madaxweynaha go-aankaas inuu qaatay ayna yani muujinayso jariimo weyn inuu madaxweynaha ku galay golaha shacabka marka madaxweynaha baad ugu yeeri lahayd arrinta horta aniga cadeymo uma hayo cabdi samatar haddii caddaataan ku iri yani even haddii caddaato yani in madaxweynaha jariimo uu ku kacay yani si sharci darro uu magacaabay dalku sharciga uu leeyahay sharci darrada iyo sharciga iyo nidaam loo raacay jira laakiin arrinta uu prof samatar sheegay cadeymaha dabcan asagaa laga rabaa asaga ama si kale loo heli doonaa yaa
yaa garsooro sare u leh yaa garsooro sare sharci ahaan noqon kara kamuu hadlin laakiin arrimo dabcan asagu uu shaksiyan xoogaal u yahay ayuu ka hadlay laakiin dastuurkuna waxa uu ka sheegayaa sharciga dhismaha golaha adeeg garsoorkana wuu sheegay sharciga actually waxaa sheegaya sharciga nidaamiya garsoorka ayaa sheegaya kaana weli baarlamaanka xataa ma marin baarlamaanka hor yaallaa arrintaa marka anigu caddayna uma hayo samatar inaan u jawaabana ma rabo wallahi aniga arrinkaas laftigiisa waa jeclaa lahay inaan comment ka bixiyo oo runtii samatar waa aqoon-yahan runtii aad iyo aad maaragtay soomaaliya horumarkeeda mustaqbalkeeda u danay runtiina yani qadarin weyn mujtamaca soomaaliya dhexdiisa kale inuu mar kasta waxa soomaaliya maslaxada u jirta ku difaacana waa ku hambalyaynaynaa xogta annagu aan hayno yani xogta aan hayno waxay ku salaysan tahay inuusan marnaba maxkamad ama dacwad ka difaacin ama uusan dacwad ka garsoorin shuruudaha guddoomiyaha maxkamadda sare lagu qaadan karo marka laga hadlayo xeerka nidaamka garsoorkana waxaa ku dhigan xeerka oo lagu xeer nidaamyaha yani garsoorka xeerka ay isku maamulaan xeerka maamulka garsoorka waxaa ku qoran xeerka hore mase xeerka cusub xeerka hore iyo xeerka cusub labadaba waxaa ku qoran xeerka cusub golaha ma marin laakiin yani xeerka markii hore shaqeynaya inta sharci dastuurka waxaa ku qoran wixii laga waayay dastuurkii hore shaqeynaya madaxduna inta badan waa isticmaalaan waxaa ku qoran inuu 5 sano maxkamadda racfaanka ka soo shaqeeyay ama ugu yaraan oo qareen ka ahay oo kiisas ka difaacay ama ka garsooray maxkamadda 2 sano xogta hadda aan hayno oo annagu weli baaritaankii waa ku wadnaa aan haynana xitaa dada waxay shaki gelinayaan inuu da'dii oo 40 sano waxaa ku qoran inuusan 40 sano ka yareen waxaana wararka suuqa hadda laga jir waay sida dekreeto ku qoran يعني سيداس أو عد إن معناها حركي أو نظاميه دكسنانا لو وافقي واي قفان هل كيس أما محكمة كالدفاع أما أن محكمة كجرسورين اللي يراهدو وحان ربنا إن عدالة تيمادو أو صوماليا مسوق ماسوق جيران حل أقول هذينينا مركز وحان أمسنا هاي بلشدة الرئيد كي إني جركو لهذا هاي إني تلمانتو تهمذا وجيتكو وإن awoodii garsoorka iyo awoodii maaragtay sharci dejinta iyo tii fulinta hal jeeb la suuqay sababtaas waxay keenaysaa tuhmadaas inaysan harin sababtoo ah qofka hadii yani qofka waxa uu sheegayo la aamini waayo khatar ay leedahay dawladnimadu waxay ku salaysan tahay aaminaada la aaminsan yahay madaxweynuhu inuu maslaxada dalka ka shaqeynayo ama xildhibaanka uu ka shaqeynayo marka isla maslaxadaas un baa dad badan xildhibaan waxay dood gelinayaan yani wiil 82 dhashay oo 36 jir ah oo kiisas badan dacwadna aanan soo qabanin isla mar ahaanta had inuu noqdo gudoomiyaha ugu sareeya maxkamadda dalka diin uu ku dooday uu leeyahay yani nidaamka xeer hoosaadka yani garsoorka wuxuu dhigay in 40 da'diisa ay ka weynaato adinka marka guddiga cadaaladdan waa aad ka mid tihiin madaxweynaha waad ku qabsan kartaan qodobka kuma qabsan karaan sababtoo ah laanti fulintay jeebka ugu jiraan kuma qabsan karaan laanti fulintay ka mid yihiin ma laha ra'yi ka duwan ra'yiga dawladdu leedahay hal xildhibaan oo ra'yigaas ra'yi ka duwan leh oo baarlamaanka ku jiraan ma jiro ra'is difaacay horta gudoomiyaha isla su'aashana roo intay kulusha inaad ii bislayso gudoomiyaha la magacaabay da'diisa anigu wax xog ah oo ka hayo 82kii u dhashay ma jirto dastuurku ma sheegayo cidda garsoore noqon karta sharciga sheegaya sharciguna baarlamaanku hor yaallaa taa waxaan kaa leeyahay midda ku saabsan da'da ma arkin anigu ninkaana ma garanayo haddii saaxiibkay diini garanayo isagaa xogta nala wadaagi doona laakiin haddii aanu sharciga iyo nidaamka qaanuuniga ah ee dalka u degsan uusan u saamaxayn inuu jagada dastuuriga ah qabto waliba jago muhiim ah taadee ma sharci uu dalku leeyahay ma suuroobayso laakiin waxa ugu muhiimsan sharciga saasaa ku qoran sharciga nidaamka garsoorka waxaa ku qoran inuu 40 sano jiro inuu 5 sano maxkamadda racfaan ka soo shaqeeyay ugu yaraan inuu 2 sano qareen soo ahay ma taqaan adigu baashi inuu 40 jiro inuu 30 jiro
warqadda warfaafinta lagu soo qoray waxaa ku qoran inuu 82 dhashay waa warqadda official ka ah oo aniga horteyda tahay waxaa ku qoran warqadda yani bulletin official warqadda lagu soo qoray lagu soo saxiixay 82 inuu dhashaa ku qoran haddii warqadaas ay qalad tahay de mas'uuliyaddeeda ma qaadanayo laakiin waa tan warqaddii bulletin official lagu faafiyay oo dawladda ay ku faafisay 82 sano inuu dhashaana ku qoran warqadda hadda adigu waa soo bixisay bulletin official maaha laakiin warqadda lagu faafiyay warqadda lagu faafiyay waxaan ka doodaynay nidaamka garsoorka ما له وايد دد بنو حيسويدينا إن ما أنت يعني كيس بدن سوق قبتي يعني محكمة العفان شنص أم تضوصن كسر شقي فهنسن على الأقل تبشون كان ما دام هنا وأفاف وجاي مركو هاللي أما وركتي القصة صاري سلا هلا الجرسون فنو عدالة لما رهنت أنا كجواب هي تبشون كبلشان قالها شعب الصوماليات مسؤولية اللي هنا دستوري جاه أو كوساب سنة إني كرميران شرعي قدل كان إلاليان مسؤولية قالها وصارن تاي وأنا مسؤولية دستورية. هذا يسوع عداتين كانوا أفرتن كيري. ولا شعب كون أنا وحبين تكاه ما مقع بين قدوميها محكمة دستورية. ضد ما أنت يا هل كان كجلين أنا كم صاب سنين. قف كلا مقع بين نظام كقرصون كصاب سنة. أوكي. قف كم يحل حريرة. بمال الله هاي صاحبك ديني ما حق كهيا نظام كشرعي هدي أنا وافق سنين مقع عريسة بالحمينو. مدحوينه شرعي كموين. اوكي قدوميدين واحد تاعي قدوميها ururada bulshada rayidka saddex xubnood ee ku leedin si guud ahaan marka loo fiiriyo dhismaha guddigan oo 9 xubnood ka kooban caqabadaha marka adinka idin muuqdo yani saddexdaas xubnood adinka aad ku leedin maxay tahay fiiri horta waxa laga hadlayo waxa waaye bulshada rayidka qof ka socdo oo dawladii la xisaabtamaya inay dawladdu soo hormariso tiraahdo waxaan ku dareynaa sida dastuurka qabaan aqbalayna horta wax aad u adag waay marka la soo fiiriyo hadda mesela guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiyo badan oo hadda la soo sameeyay inta badan dawladdu dad ayaga jeebkeeda ka wadatay keensatay xuseen xildhibaan iidowna waa nin yani muddo fiican khibrad la ka soo shaqeeyay dawladdii hore si fiican ula soo shaqeeyay tan hadda xogaal waa annaga waxaan ka hadlaynaa waxaan jeclaan lahayn in baarlamaanku mas'uuliyadiisa guto okay marka waa xildhibaan ugu dambeyn yani hal su'aal aan rabaa inaan siiyo mar haddii adinka xildhibaan golaha shacabka labadiina aqalka sare aqalka hoose la idin ku tuhmo inaad jaabka aad ugu dirtaan golaha fulinta lama rabo isla mar ahaantaas yani maxamed nalaguma tuhmee dooda walaalkay waaye baarlamaanka shacabka golaha shacabka Soomaaliyeed waa 275 xildhibaan jaabna ma galaan marka dooda qofka ila doodaya aad ugu ma qaadan kartid ma ku soo wada yani dad badan oo aaminsan hataa yani in baarlamaanka maanta awood u sameeyo kaba soo qaad inaan anu aaminsanahay okay kaba soo qaad waxaad ka soo qaad inaan anu aaminsanahay bulshada rayidka bulshada gudoomiyaha bulshada rayidka okay asay okay waxaan ka hadlaynaa waxaan jeclaan lahayn inaan nabatashaan waxaan jeclaan lahayn inaan mas'uuliyadiina ka soo baxdaan golaha shacabka aan ku dhameystir marka yani sida sidoo markii yani cadama garsoorka u madax banaanaanaya mar haddii golaha fulinta ay fargelin ay ku hayaan nidaamkii dhammaanaya garsoorka su-aasha intaa raba inta maxamed doodu saaxiibkii xaqa uu leeyahay inuu dhaliilo waana shaqadiisa dowlad wanaagana uu u advocate gareeyo waa ku saxan yahay laakiin waxyaabaha uu ku doodayo oo ah dowladda golaha shacabka Soomaaliyeed jeebka ugu jira xukuumad iyo dhowr wasiir waxay ku tahay sharaf dhac golaha shacabka waxaan qabaa inay la gudboon tahay inuu raali gelin ka baxsho okay asaga u taala taas waaye ay iidadeji adiga dad badan qaba markaad leedahay very subjectively oo hadlay dad badan waa meeqa qofood bulshada 12 milyan maanta adiga research sameeyo bulshada baraha bulshada meesha maanta dadka ay ku kulmaan hatta yani qaranada dalkan wuxuu leeyahay dawlad sideedaba nidaam markuu jiro wuxuu leeyahay dad taageersan wuxuu leeyahay dad mucaarada dawladda hadda jirta waxay leedahay dad taageersan golaha shacabka waa ku leedahay golaha kale aqalka sare waa ku leedahay dad mucaarada oo xor ah oo tiro badan oo ajenda leh oo si effectively golaha uga shaqeeyana waa leedahay waana ogtahay baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeedna jeeb kuma jiro dooda walaalkayna dabcan de waxaan isleeyahay doodaas golaha gafay ku tahay adigana ma kula guddoonay kula qomaneed inaad sidaa u dhigto waxa dhan la isku haysto waa xorriyad ra'yi haddii uu qof bulshada rayidka ka tirsan uu leeyahay baarlamaanka ma dhaliili karo
micnaheedu waxa waaye qofka muwaadin xuquuqdii asaasiga ee qofka Waa- muwaadinka waa- waa dhaliili kartaa, laakiin- Okay. maaha Okay. fiiri dhaliisha aan qabo waxa waaye Gudoomiye. sababtii loo abuuray baarlamaanka inuusan shaqadiisa qabanin haddaa shaqadii qaban weyso tuhmada automatically u imaanaysaa haddii Okay. guddiga garsoorka la dhisi Su-aasheedu waxay tahay marka ilaa carta yani- laga soo bilaabo ilaa carta laga soo bilaabo haddii guddi garsoor oo la isku waafaqsan la dhisi waayo Dilio, gudoomiye waqti ay yani su-aasha ugu dambeysa aan rabo inaan weydiiyo waqti aad yahay baarlamaanku shaqadiisa waa ka gaabiyey si degdeg aad ku gaartay aragtidaas saa anigu qabo baarlamaanku shaqo adagoo qabtay shuruuc badan oo muhiima oo sharcigii shuruuc dalka muhiim u ah ayuu ansixiyaa xildhibaan macdalatan waqti iga dhacay ugu baarlamaanku dambeyn ma shaqeeyo I think inaad arrintaas inaadan ka fiirsan fiiri si fiican aan uga fiirsaday aniga waxa aan xaq u leeyahay anigoo weliba u doodayo yani mas-uul bulshada rayidka ka tirsan waxaan xaq u leeyahay baarlamaanka dhaliishooda inaan banaanka soo dhigo adiguna xaq uma lihid inay dhahdid ra'yigaaga ma dhiiba kartid micnaheedu waxa waaye waa dhiiban kartaa waa inuu saxnaado maya ereyga dhan Waa lagu toosin karaa. maya ereyga dhan oo gaashaanka u ah waa inaadan saas i dhihin micnaheedu waxa waaye wax ma dhaliili kartid golaha shacabka Soomaaliyeed maya wax ma shaqadiisa dhaliili ma guto shaqadiisa shaqsidii aan ka adigoo shakhsi ah Matalan, golaha hadda shacabka guddiga Soomaaliyeed adeega garsoorka la isku haysto guddiga adeega garsoorka la isku haysto shaqadaadi iska dhaaf adiga shaqadiisa ma guto hadda haddii lagu yidhahdo shaqadaadi ma gudato soo xaq uguma leh yaa kula xisaabtamaya dhaliisha ma yaa kula xisaab adiga yaa kula xisaabtamaya shacabka yaa Soomaaliyeed shacab yaa mas-uul u tahay soo aniga ima tihi shacabka Soomaaliyeed soo anigu ka mid maahay ha haddaad gaabiso yaa ku toosinaya waa dhaliisha xaqa waa u leedahay Hadda wax kale ma sheegin. aragtida ah Fiiri, wax baarlamaanka kale shacabka wax kale- Soomaaliyeed ma shaqeeyo fiiri hadda adiga Oo waajibkiisa waa tahay Waa kaliya hamba intaan Jaab- intaan jaab- jaab- ku jira. wadaagtan Adiga waa shaqadaada shaqada qabsan weyso, waa la dhaliilaa, waana inaa aqbasho. nabadiyo warsan